gobolkan Sanaag waa deegaan nabada oo boqolkiiba 90 uu yahay nabad oo markaasi ayna ka dhicin wax dhibaatooyina odayaashay wax garadka ku nool degmada Ceelbe gobolkan Sanaag iyo degmada Baran iyo meelo kaleba ayaa ka hadlay nabadgelyada gobolka Sanaag waxayna tilmaameen gobolkan Sanaag inuu haysto nabadgelyo buuxda waa kuwan Cabdillaahi Dhaaye Jibriil gudoomiyihii xigeenkii hore ee degmada Ceelbe Bismillahir Rahmanir Rahiim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad أنا halkan aan rabnaa warbixin kooban inaan ka sheegno waa colaada la sheegayo oo la buuqinayo oo la leeyahay Sanaag bay ka soo bilaabaa bay ka warowsan tahay la leeyahay gobolkaas waxa naloo sheegay ciidan Ceergaabo ka soo baxay oo Yubay ciidanka wax dhiba qolada Yubay looma sheegin anana ma maqal waxaan leenahay ciidanka laftiisa Yubay isagu laftiisa fariisinkiisa ku noqdo oo nabadgelyo xumada yaan loo arkin ciidamo meesha loo soo qumay nabadgelyadaas way gobolku qoladana waxaan leenahay Yubay hadday yimaadeen dib fariisinkooda ku laabteen oo ka noqdeen aare annaga nabadgelyo gobolkan ku nool darisna waa nahay wax dhibo annaga xaqayaga ama ka sameeyay ama ka dhacdayna ma jirto Puntland waa ogtahay meeshu ku nool yahay Somaliland waa ogtahay laakiin yaan naloo soo marin gobol ahaan annaga yaan naloo soo marin anigu aan ka jeedinaya xagga annagoo ka hadlayna gobolka Sanaag gaar ahaan bariga Sanaag degmada Ceelbu waxaanu ka warbixinaynaa gobolka inay ka jirto nabadgelyo wax dhibaato ah aanay ka jirin gobolka Sanaagna waa isku xidhan yahay ciidamada muxuu ahaa Yubay joogana waa ciidamadii gobolka joogay ciidamada erka ka soo dhacay maaha haddana nabadgelyo ka jirta waxaan leenahay ciddii doonaysa inay mashruuc ka dhigato Sanaag ama bariga Sanaag wax dhibaato ah oo ka jira ma jiraan meelo kale inay ka daydo baa u qurux badnaan lahayd ciddii ka doonaysa dhaqdhaqaaq inay ka hesho halkaa waxaan leenahay gobolka nabadgelyo ka jirta sidaasaanu ku warbixinaynaa ciddii awr u soo raran yahay oo doonaysa inay nabadgelyo ka samaysona waxaan leenahay war awrkaaga daaso halka nabadgelyo ka jirtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isla sidoo kale odayaasha degmada Baran ee gobolka Sanaag ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay xaaladda nabadeed ee gobolka Sanaag haatan ku sugan yahay dalku waa nabad dalku aan joogna Sanaag bari waa nabad wax dhib aan ku ognahay ma jiraan odayaasha madaqada aan nahay ninkii dib la doonaya oo say ku raran tahay Puntland waxna ma yeelin Somaliland waxna ma yeelin dalku waa nabad baan ku ognahay ciidana ma soo weerin gobolka Sanaag haddii xoogaa laga sheegay Yubay ciidankiisa wax jooga Ceergaabo jooga waa Yubay Ceergaabo xisaabsanta wax noo yimina ma jiraan wax dalkay ku soo duulay ma jiraan waxaan ognahay ma jiraan ninkii wax ka qodqodaya oo isagay ku raran tahay dalku anagu nabad baan ku ognahay waxaan dib aan haynaa ma jiraan caraa la sheegayo Puntland hay weydiiso Somaliland hay weydiiso midwalba waa og yahay meeshu joogo dalkana wax alla wuxuu yeelay Sanaag bari ma jiraan nabadgelyo baanu ku ognahay gobolka wada deganahay oo dees waa nahay oo ku noolahay oo Sanaag boodan hayaan laakiin wuxuu dalka u geystay Sanaag bari midna ma jiro Puntland waa ogtahay meeshu joogo Somaliland waa ogtahay wax ninka ka faa'iidaya Sanaag bari qodqodaya anoo ka hadlaya gobolka Sanaag odayaal waxaan ka odayaasha hore ba sheegeen gobolku waa nabadgelyo wax dhiba oo ka jirto aan ognahay haba yaraatee ma jirto ilaahayna waxaadan qabin lagama sheegto waxaadan ka qabin lagama sheegto ilaahay nabadgelyo la siiyey barwaaqo la siiyey waqtigu waa yar adag yahay waqtigaa yar adag halkii dadka wax laga tari lahaa haddii khalkhal iyo nabadgelyo daro lagu abuuro ciddi ku abuurtay iyada iskale in dadka waxaan jirin loo sheego oo khalkhal iyo nabadgelyo daro lagu abuuro waxaan bannaanayn wey
ciidamo noo yimi baan jirin cid waxna yeeshay baan jirin xaaladda nabadeed ee gobolkani sanaag haatan uu ku sugan yahay. isku soo waduubo gobolkani sanaag waa gobol markaasi nabad buuxda haysta, bulshadiisuna ay si weyn u wada degan tahay nabadaasi buuxda. waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur, telefishinka caalamiga Soomaali News TV, degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag.